الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يعني هرين ماملك جامعاتك iyo macallimiinta iyo ardadaba iyo dadweynaha kaleba waa mahadnaqaya waqtiga iska kooban darsiga lagu talagalay maanta wuxuu yahay huwiyatul muslim fi zaman al-awlama qofka muslimka baadi soociisa ama aqoonsigiisa ama sumadiisa waqtigan awlamadu globalization waqtiga kan dunidu isu furantay midka qura noqotay erayga alhuwiya fi lugha alarabiya min huwa baa laga soo qaaday waa masdar ama ism mansub ila huwa bay yidhaahdaan waa masdar sanaaciya waxaa looga dan leeyun xaqiiqatu shay في علم الفلسفة الهوية وحي كنت المامان حقيقة الشيء أو الشخص التي تميزه عن غيره شيء ذات ديسة أما حقيقة ديسة أما قفك بني آدم كاه وحقار كيالة مركا هوية دا الشرحيان مرنا وحل الشرحة قف هوية دي وحل يسويديا قفك بني آدم كاه محاضتك انت كلك الصوعة مثلا waraaqan yar yar aqoonsiga inuu sidana waxa loogu talagalay 7 bilyan ee dunida ku nool in laga dhex garto 7 bilyan ee bini'aadamka ee dunida ku nool wax kula ID inaanay jirin basamaadkaaga inuu wato suulkaaga saxiixaaga ama indhahaaga ama waxunaad kaga soocantay aadanaha intiisa kale marka wuxuu sheegayaa manant kuma tahay مرنا waxay ka waramaan alhuwiya ijtimaaciya bulsho waxay kaga soocantay bulshooyinka kale dad meel degaan leh ama mabaadi leh maxay kaga gedisan yihiin dunida inteeda kale bulsho ahaan qoomiyad ahaan dhaqan ahaan diin ahaan luqa ahaan akhlaaq ahaan values ahaan iyo qiyamka ay leeyihiin maxay kaga soocan yihiin dunida inteeda kale sidaa ugeed bay ummad waliba waxay aad uga fakartaa oo la yiraahdaa manahijta tacliimiga waxyaabaha ay u unkantay kamid ah cilmiga qoro uma unkane waxay u unkantay labaad oo loo sameeyay inay bulshada huwiyadeeda ilaaliso bulshada dadnimadeeda iyo aqoonsigeeda iyo waxay dunida gaar kaga tahay inay u ilaaliso si ay uma jirto u noqoto marka ziyadatul الوعي بالذات إن لكبعيه ضدك إنه ذات دي سجران كرو إنه جران كرو وحب بلشات ككلك جسوا عينه مركا كسوة هوية المسلم زمن العولمة مركا نوجدنا مع عصر العولمة الله يرهده عولمة دو رياضا عصب الدبلغة استعمالي globalization كسوة حيكون شاقانين ويحي وحرية المال والبضائع والناس والأفكار بين هذا حرية حركة المال وإن دوني ده العقد تصعن كرته ولا يسوق بين كراء أنا قيود حريسة شيرين بضائع دي برودكشن كبني آدم خصوص صارين اللي يسوق بين كراء آدنا هلفتي يسوين يسوق بكراء أفكارتنا إن يسوق بكرته سكال هذا نوت الممنوع وحي يفكر يعني الحدود اللي طلابه إن اللنطوحن لا يراد sovereignty أما السيادات كودنا دولية تا معنى هذا وحويان دوني دورن إن لا يسفره إن كستوب إلي أنا نسي عدالة يسقفر من وهي دوني دبرنا دول كا ومراكزتي أما والسنتر كدوني ده لقى حكومه dadna waa atraafta dacallada preference waa hareeraha dadka degan waxaan xorriyada la siiyay waxaan oran karnaa xaqiiqatan waa dadka centerka degan inay dunida say doonaan u isticmaali karaan
أما ذاتك بريفرالسك هريرها الدقاني iyaga aragtiyahooda waa la tashwiihiyaa oo cilaamka dunida dad baa gacanta ku haya badaa'icdooda waa la mamnuucaa productionka ay soo saaraan oo qaanuun iyo macaayiir ay dejisteen iyo nidaamka suuqa xorta ah intuba ducafada uma naxdo waa ka soo horjeeda sida awgeed bini aadamka socodkiisa قوانين الهجرة الانتقائية بيدهدان وحلقوا حكمها قوانين تلود دجستي سو قلوتيغا مد دور الشالي مثلا أفريكا سنة والبا وحيدهان لباتان كون أقون يهم بيكا قاطان هدونا أقون يهند أفريكا باهان تاين تدبو حوغا لوغو كينا 4 بليون سنة تستلقا قاطا كودنا بلاش والغو قاطا وقوانين صارمة aan loo ogolayn cid waliba inay soo gasho iyagu marka globalizationku iyagu dan u yahay dhankooda marka laga eego badaa'icdooda maalkooda dadkooda iyo afkaartooduba dunida way maanshaysay ama dunida inta kale waa marti haddaba haddaynu nidhaahno علاقات كأذنا كدحية وحكوفينا الانفتاح والمساواة إن ليسوا نفرن هي نوع ما استحترامي السنان وحون هنين الجيران وبنادمكم منافع دا يسكوي دارسدو يقول حين أقول واقعيا حلوبة هي مجتمعات منفتحة وليبرالة ومالتي كالجراليسم مثلا تطفرا ويجا أكتوده الحرية الفردية أما أيضا تتيجي قفكو يالنا يسوع رقم يا كمهم سن كبلشدوا إلى ضحي هذا سكلوت المامنا الدنيا دمانته أنت حاجة بدن أي خطيط أودكسه نظام كتعليمي قادتك كلوق اللي تا سيستم كودي إعلام كنا يجا عنده كهية قانون كعالمي كان يجا دجية international law اللي شيء جيو هذا وحبكم الهيد قلا دجيسه هذا هو الحقوق حكومة وحنا نذكر النظام الحياة في العالم قلا مرتلويه أقلية طبعا يراهدين أما minority groups تراهن minority معها لكن technologically أما دقالة أما حب أيي وبحيان دوني ده صدحات حتى الله بعد معها دوني ده صدحات إذا وحصارا بيدا هذا لبا مدون الذوبان إنه ميلانته وكم نقطه لكن هو ميلان لو يسقو ميسنيو أما وحا عدي أو دا يكون دالسة الاندماج مع حفظ الهوية إن بني آدم كالله نفرمه ضد نمضى دانا الله إلى شده هذا إنه عنوان قصر السدا وشرحناه هوية المسلم في زمن العولمة دون دا يصفر أنت مسلم كسدو إلى شنكرا شريتان كيسة دد نمديسة دين كيسي عقيدة ديسي وحر رميسين يحي values كيسو آمنسين يحي أول واحد يورنشرين الإنسان ابن بيئته بني آدم كوا environment كوكو كربا يورنشرين لكن إن كستو environment كو أما بيئة أما الديجان كو قفك بني آدم كأوراد بدن كلية هي كورستيسية نولشي سبا هذا بيئة الدنيا دبي هذا والله من نوع وبيئة طبيعية وتناجر الكاه تن ديجان كتكون نوشهاي كلايمت كيسا وحردقضو نولشيسا قاب كاللوغن نوليي كطبيعي قايلة هيدتك وقيبيان من بدوني دا ملك الدقيي هي البيئة الحضرية بيد هذا ديجان كالسيفلاسيشن كأما التمدن كأما مدنية أي لا ضحي وأهبيد هذان كالجر كبني آدم كوليه هي ديمه الرميسية هي أفكا وكوهد ليو رقمدي عادات كبولشيت قاب تعليماتك وسائل كان إعلامي جوح لسو قارسيو انت سوى انت
transformationka ku samaysa qofka bini aadamka ama beddesha asal ahaan qofka bini aadamkii waa xor ilaahay ba subxaanahu wa tacaala xorriyad siiyey xataa rumaynta alle ayaa xorriyad loo siiyey inuu doorto alle iyo inuu diido laakiin xorriyadda abaalmarkeedu inuu yeelan doono marka waa xor haddana waa mas-uulun can tasarufaati wa axwaali waxaa la weydiinayaa habdhaqankiisa iyo waxa uu sameeyo bii'ada uu degan yahayna wuxuu ka soo dhimbiil qaataa siduu u fakerayo iyo dhaqankiisa iyo bulshadiisa si ugu xidhan yahay calaa'iqda ijtimaaciga ee bulshadu ay leedahay iyo waxa allaaliya waxa noloshiisa ka mid ah waxaana yidhaahdaan markay isweydiinayaan oo miyaad tahay bay yidhaahdaan waxaad aragto iyo waxaad cunto iyo waxaad maqasho mooyaane ma wax kala tahay bay yidhaahdaan waayo qofka bini aadamka ah waxaan ku hareeraysan baa noloshiisa raadka ugu weyn ku leh cuquushu waxay taxliilisaa waxa ay siiso xawaasta dabaddu waxay dhegtu maqasho waxay ishu aragto waxaad cunto waxaas baa jidh ahaan aad ku kortaa oo noloshaada caafimaad saamayn weyn ku leh sidaad u fakeraysana saamayn weyn ku leh walidaalika bay waxay dhahaan qof waliba kayfkiisa gaarkaa godkiisa gaarkaa buu ku jira ummaduhu markaa si ay identitygooda u ilaashadaan ayaa guriga iyo dugsiga iyo iskuulka iyo jaarka iyo shaarican agagaarkaaga iyo masaajidka iyo wasaa'ilu tacliimka iyo wasaa'ilu liclaamka iyo nidaamka dawladnimo waxaasoo dhammi waxay u dhisan yihiin ummad kastaba inay u ilaaliso huwiyada ay leedahay su-aashu markaa waxay tahay haddaba innagu sidee baynu huwiyadeenna u ilaashan karnaa dadnimadeenna iyo diinkeenna iyo magaceenna saynu ilaashan karnaa waa haddii aynu alwacyu bidaat leenahay haddaynu is ognahay kaynu nahay isgaranayno u khatidno mustaqbalka soo socda waxaynu noqon lahayn u diyaargarowno dagaalka dunidu isku haysa aqoonsiga ah in aynu noqon karno dad mabaadi'dooda iyo dhaqankooda iyo diintooda iyo afkooda la ictiraafi karo identitygu waxay dhahdaan waa caqaa'idda dadku haysto mabaadi'da ay ku dhaqmaan bulsho ama ummadi khasaa'ista gaare ay leedahay ummadaha kale kaga soocan tahay innaga ka umma ahaan ilaahay wuxuu ina leeyahay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ka umma islaamiya waxaad tihiin dadka kuwii ugu khayr badnaa ee ilaahay dadka u soo saaray dadka samaha fartaan xumahana waa ka reebtaan ilaahayna waa rumaysaan khayriyada ummadda tani waxay ka soo burqanaysaa oo ka dhalanaya gooniisutaaggeeda dhaqameed qaanuuneed shareeceed diimeed caqiido akhlaaqeed walidaalika baa markay mas'aladu joogto identity ma aha waxa bini aadamku kala qaato ilaahay wuxuu leeyahay lakum diinukum waliya diin waxaad ku tidhaahdaa dadka diintiinaa leediin waliba culammadu waxay dhahdaan addiinu fi hada almawqic waa dhaqan oo dhan kiinaa leediin annana kaayagaanu haysannaa waxaa ilaahay inoo tilmaamaya keennu inuu dhammaystiran yahay alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina waxaynu u baahanay markaa qofka mu'minka ahi ama ummadda islaamka inay caqiidadeeda xejisato intimaa u yeelato bini aadamku waa groupinga inuu groupkaa ka tirsanaado ku faano waxa uu haysto ixtiraamo qiyamka ama valueska ay leedahay xadaaradiisu iyo thaqaafadiisu kor u muujiyo shacaa'irta iyo astaamaha diimeeda lagu yaqaano xejisto waxa uu rumaysan yahay dareemo tamayuska ama soocnaanta uu kuwa kale ka soocan yahay fardan wa jamaacatan
كوكعه إنه مدى أنت كلا جارسيو الرسالة واجب التبليغ دين إلهي سبحانه وتعالى وسور ديبي مرخاتنا كل نقضة ومدى ما أنت واحد نقول إنه الله هذا عالم الصفر ماي قارضة دون دور من صفر مين وعالم أفكار عصوبي وديمها لقسي حروب يا إيتاجنتي وحلو أركا قضايات كفاليوس كي أخلاقيات بين نسبيين أو البني آدم كو حر السنة قيم كو عالمي هينو ثابت نية وحسوغن نية هي عالمي نية كوري وحي كنا واقعيا ووح نسبية ما هو وحي يونيفرسال وأركتيكو كورية ميلا أما حاضنات ألا دينية وألا أدرية وألا أبالي بين هذا ميلا أن دينت الله يسنن وما أنت الدنيا وحا آدو بدن دلين يرد يوروب جوكتا وحي دادان حسايا دادا دنبه بولكي بطو دباتن وحبا مرو ما يسناد دائر كاستقالي اللباتن شركير دائر كاستقالي اللباتن شركير إله مرو ما يسناد ما وحبا مرو ما يسناد وإيثيسم داد كان إيثيسم كعض هيسانينا وحي هيستان بيدا أباثيسم كو ولا أبالي وسيدي أن إله جرين بأنولي يعني مسألة دا فيلسوفيكالي كمر من مايو لكن دقن كيسي يقاب كو أنولي هاي وقاب أن ديني كجرين قاركود وأغنوستيكس ولا أدري كوي هورا وحي لها إله مجرى كوري وحي لها إنو جري إنو جرين بموغن إنو جرين قرن مينو إنو جرين قرن مينو قاركود واسكبتيس ومتشككين قاركود وحي عميسيين وفيلوسوفرس كودي ووينا كميدي بانثيسة ووحدة الوجود إلهي يكون كوينس كميديهين أفكار تاني ولي جيد بدوني دا ويسوي شوكتاي ما عصبا لكن واجه هورا وحي هانجرتاي قوبها فلسفة دايو داديو فيلوسوف الرأيو dad farakutir siyaahi waxay rumaysan laakiin maanta waxay taa kaga gadisantay afkaartu ma cusba laakiin maanta waxay isu bedeshay inay diin caalami laga dhigo waxay tii hore kaga gadisantay awalba falsafada waa lagu dhigan jiray taariikhul adiyana waa lagu arki jiray taariikhul falsafana waa lagu arki jiray laakiin waxay hadda kaga gadisantay waxa loo bedelay umamkoo dhan in laga simo وحتى الله بلابين عرورتا يرير رغو تربيه إن بوكس لو قرأ أول بوقت دي فلسفة دا لو قرشية دادك أهل العلم قاية دادك سيني دوضاها قلان هذا وحا لوغو تلقلين لغو تربيه يا عرورتا بوقاك عرور لو قرأي ومثلا أنا كهارس بوقادا لنا أنا أتساءل أحباب سويدينية وإلحاد أيلين عرورتا لوغو تلقلين وحي قادين أي قرآن وحي مكوية قانين دوميس بوكس والله الساينس كأول واحد يقول جرين كتب الأغبياء وحلا يراده يعني علوم تبوغاك فضايديسة وفن كستو كوكو أتكادا هذا دوميس بوكس يبسطه سي بسيطة الله شرح يا مركي بوات فهميسا مركا واحد كتب الأغبياء وقوليها أكاديميك رباين علوم تشلعيان أي كتبتن أضدق أنت لقيت جايبا كتابة وحلا قري سفضت وهذا إمكاناتك كله فتو دمس بوكسك فني قاعد فهمي كيري وإذا واحد لسا صد حفر شنبوك وإذا هذا غبية ضل لوقت تلقى لي وهذا مركب فهم إيشه ده تروح القرآن The Young Atheist Handbook واحد مرتد أسأل كيسي هراها بنغلاديش ألوم شاها أيها قرآن تكس بوك عيالك اللديتك عيال كان إلهي ربع سنين بالربا تكس بوك لو قرأي حيسان كران مركزا Humanist Association كان إنجليز BHA كوانا يلهدان نا إنتي بديين أي وحلالية وح سكندري سكول كويا له
ingiriiska intiisa badan England iyo Wales Scottishka marka laga yimaado inta kale waxa ku yaala ayaa loo wada qaybiyay waa caruurta oo dacwa loo furayo ah in la gaarsiiyo diin la'aanta markii ay dhacday 11 September wixii ka dambeeyay dawladda badani waxay u janjeersadeen inay diimaha la dagaalamaan saadaradeed barnaamijta idaaciga ee fadaaga ka baxda ee dunida oo dhan loo iclaamiyo iyo waraysiyada jaraa'idku qaadaan iyo waxa loo badiyay dad yawa ku caanbaxay atheismka qoyaanada jaamacaadka joogay ee waxaan rumaysnaa ayaa loo sameeyay talmiic in la soo caanbixiyo dunidu barato maalin walba usbuuciiba mar in waraysi laga qaado mid iyaga ka mid ah oo barnaamijta ugu caansan markaasi uu ka soo baxo intay soo dhaafiyeen ayay urur diimeed noqdeen hadda urur diimeed Atheist Alliance baa la yidhaahdaa Atheist Alliance International sanadkiiba mar bay isugu yimaadeen atheiska caalamka oo dhami magaalooyinka waaweyn ee dunida mid ka mid ah bale kursi baa laga siiyey goobaha diinta xiwaarul adyaankan ay sheegaanba kursi laga siiyey bale ingiriiska maanta waxay ku leeyihiin kiniisado diin laawayaasha waa kiniisadada non religious churches bay yidhaahdaan kiniisadaha diin laawayaasha oo khawaar ruuxiya iska haya markaa meel intay isugu yimaadaan ayaa waxoogaa heesa loo saaraa la boodboodsiiyaa sidii intii ay kiniisadu samayn jirtay maalinta axad oo kale wax u dhigma in loo sameeyo oo waxa la yidhaahdaa waa non religious churcheska waxay leeyihiin iclaamaad dadka loogu yeedhayo maalan basaska London dhex mara baskan cad ee labada dabaqay saarka ah waxay u sameeyeen iclaanaad dhinaca kaga dhigsan oo iyagu lacagtiisa bixiyeen oo la yidhaahdo there is probably no God stop worrying and enjoy your life bay yidhahdaan hubanti ilaah ma jiro warwarka jooji oo noloshaada ku raaxayso ayaa dhinaca kaga qoran baska dadku fuulo yani waa diin la faafinayo waxaan weedhaha kan idinku tilmaamaya waxa weeyaan caalamka duulaan xoogan baa ka jira oo diin ah ilhaadi oo la faafinayo oo da'yarka iyo dadka akademiga iyo dadka soo socda lagu faafinayo insaankuna asliyan xaajatul intimaa kama maarmo inuu cid ku tiirsanaado laakiin su'aasha isweydiinta le waxa weeyaan dadka muslimiinta intay feejig yihiin inteeba dadkooda akademiga ama dhallinyaradooda jaamacaadka dhigtaa ay usuulu diinihim sugeen inteebay diintooda ka jaahil yihiin ama se ay aqoon u leeyihiin diintu horta ogow ma aha dhaqamadan reeru iska haysteen iyo meelaha kan intaa ma aha inta dooda lagu galo ama mabaadi'da lagu xijiyo ama shakiga la iskaga ilaaliyo waxaad u baahan tahay caqiidadaada inaad si dhaba u baratid waxaynu isu wada haysanaa inaynu diinta naqaano laakiin way yartay waxaynu ka naqaanaa kitaabullahi waqaara kabiira masaaxati almuktashafa cindanana aad bay u yartay sida awgeed أسئلة الكبرى وين جوابها لا فيلسوف كي بني آدم كوكو مرمى حقان كايني حقان كصعدة محانا حي دوني محان كقبانية وسؤالها أي فلسفة دورنا بكو ريكتو علماء عقيدة الإله كور ربعنا بكو ريقان علماء نفسي انتو بدنا يكو ريقان علماء الاجتماع كو ريقان حقوقيين تو يكو ريقان إن لحديدة كماطي marka darsigu wuxuu ku saabsan yahay inaan baranno inaan tahay insaan muslima oo Soomaaliyeed waa leeyers kala hooseeya leeyerka ugu sarreeya waxaan leenahay insaan baanay xadaaradan dambe ama madba aan idin sheegay bini aadamka insaannimada uu ka saaraya dad akhridaan kutubtan ka warramaysa usul al-akhlaaq iyo mawqif al-malaaxida iyo waxay ka taagan yihiin waa inay values ka la dagaalamayaan bini aadamkuna values ku kaga soocan yahay xoolaha hadduu values ku lumo مثلا values ka ku saabsan guurku hadduu lumo oo la yiraahdo dadku sida xooluhu mushaac yahay ama dadka iyo xoolaha isguursan kara
sida filosofkooda akhlaaqda waa falsafati al-akhlaaq professorka dhiga ayaa taa rumaysan dadkii xoolaa in la isku daro marka hadduu valuesku dhinmo la burburiyo bini aadamnimada lafteeda burburaysa dadweynaha diimaha rumaysani waxay isku raacsiisan yihiin in valueska bini aadamnimada la ilaaliyo kow markaa waxaan leenahay insaan baan ahay insaannimadii waa laga soo horjeedaa dad waxaa u dagaalamaysaa inaad bini aadam noqoto oo valueskii aadamuhu uu hidiya dhaqan u lahaa ilaa nebi aadam ka soo bilow bini aadamku nin iyo gabadh buu ahaa usro kale ma jirin maanta si qaanuunka caalamiga waxa lagu daray usradu inay intaa ka badantay usrada waxa la yidhahdaa maxaa reer la yidhaahdaa nebi aadam laga soo bilaabay ilaa hadda bini aadamku wuxuu yaqaanay reer in la yidhaahdo maxay nin iyo gabadh sacanka maaha haddase united nationku wuxuu qoray iyo waxa dunida lagu faafinayo iyo dawlado badan oo dunida ka mid ah waxay qirteen waxa weeyaan reerku inuu intaa ka badan yahay laba nin baa reera laba dumaraa reera dad iyo xoolaa reera wixii la doonaa reera hadda wixii la doonaa reera idan waa valuegii bini aadamnimada oo laga tegay diin weli maynan ka hadal waa valuegii insaaniga ahaa ee abin can jaddin aadamaha inta taariikhdiisa la hayo lagu hayay oo la tilmaamayo inuu qaldan yahay marka waxaan leenahay insaannimo bini aadamnimo identity abaa dunidu u dagaalamaysa hadda mar labaad gruubka insaannimada aqbalay waxaan kaga gedisanay inaanu muslimnay inaan ilaah rumaysanay oo aakhiro rumaysanay oo rusul rumaysanay oo kutub rumaysanay oo alqadaa walqadar rumaysanay kuwa rumayntooduna adilla caqliya iyo cilmiya bay u baahan yihiin awal waxaad ku noolayd meel dadka kula joogo oo dham islaam yihiin waxaad ku noolayd meel su-aasha ah ilaahay ma jira mise ma jiraan cidiba isweydiin ee dadku ku wada qanacsay in ilaahay jiro meel aan su-aasha ah la isweydiin ilaahay rusul ma soo dira mise ma soo diro in rusul ilaahay soo diri jiray ay jirto baad rumaysnayd meel baad ku noolayd aakhiro aanay questionable ahayn meel baad ku noolayd ahayd maxay kutubta in ilaahay soo diray iminka kulluha calaamatu su-aal baa taagan waxaana taaganaya dunida isu furantay iyo dadyawga mabaadi'dan qaatay oo diin ah oo faafinaya oo idaacada leh oo tv-ya leh oo academic schools leh oo wax walba leh oo dawlado waaweynina ay taageerayaan waayo qaybaha hore dee dawladaha yurub qaybo ka mida baa madaxdu aanay ahayn kuwa bini aadamka ka baxay ay yihiin aan sheegayo valueska bini aadamka kuwa dhaafay bay ka mid yihiin madax badan madaxdaasi waxay qaateen wadannada qaarkood in lagu qasbo tacliinta laga soo bilaabo kindergartenka ilmaha yare afar jirka ah baa loo bilaabaya wadannada badh in usradii la bedelay in la dhigo oo la yidhaahdo ardaydan yare kalaaska soo galay kana laba aabbuu leeyahy kana laba hooyuu leeyahay kana aabbiyo hooyuu leeyahy markaa dadku inay caadi tahay oo ilmuhu la soo qabsado isagoo jooga kindergartenka aan iskuulba soo gaadhin waxaan leenahay marka hadda dhallinyaro badan baa jiroo ka murma meelaha kan ee facebookyada iyo waxoogaaga kan soomaaliduna waa dad warka aada isu gaadhgaadhsiiya weliba waa dad xataa hadduu shakiyo shakiguu faafinaya war bal horta meel gaadho markaad waxun ku qanacdo faafi markuu shakiyo shakiguu faafinaya waxaan leenahay markaa islaamnimadeennu waa inay noqotaa islaamnimo cilmi ku salaysan kitaabka qur'aana arkaanul iimaanka aan sheegaynoo dhan adilo caqliyuu ku sugaya idinku waxaa u haysataan ama dadka badh waxay isaga haystaan adilo samciya inuu ku sugayo war qur-aanka dad gaalaa baa lagula hadlayay qur-aanku markuu soo degayay muslim qudha lamuu hadlayne gaal baa lala hadlayay qur-aankan baana islaaminayo lagula hadlaya isagaanay ku qorantay markaa daliilka caqliga ahi daliilka caqliga ee qofka lagula hadlaya isaga ku yaallay laakiin wuxuu inooga baahan yahay baxfi iyo baadhitaan waxaan leenahay markaa insaan muslima
والصومالية الصومالية محانو لهي صومالي نمضو وكالجر يأف يمكن واحد مودا أفكا الصومالي قوينو سير لمن يصير صعوده إني نوقع ظني وحيابا يروان بورين إني نوح وين مود نو أففك كلينا أفف وين يهين أففك أفكي علمي لغو قرانا وأف علمية دو نقضة أفكي جهلي لغو قرانا أف جهلية دو نقضة ده أفكينا علمك قرطانا أف علمي صابحية هديو جهلي لغو قرانا أف جهلية بصابحية سأوقدو حلنا هاي عقيدة هاي السنة كونك أما يونيفرس كاركتي كاسينيس قفك بنادم كاركتي كاسينيس نولش أركتي كاسينيس meesha lagu dambayn doono aragti ka siinaysa taariikhda aadanaha aragti ka siinaysa mustaqbalka aadanaha iyo xaq uu socdana aragti ka siinaysa ولذلك ما إلهي النبي وحكولي عليه الصلاة والسلام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين بعتر هذا صلاة دايدة هي نسكي عبادة دايدة قورة عيقة نول الشيء دي غيري دايدة لله رب العالمين عقيدة مركا والركن كوكوادة قفك أيضا تتجيس شيكتا عقيدة وحا كردن بالما وحلا إذا الولاء والبراء والشيء يعد اسكو بهدتين مركا باب كان شوكتو يعد كلا بهدتين شيء يا انتماء وعدو كتر سنة هي يعد أنا كتر سنين معتقدكم مركا بالشكسته يومت كسته وحو أصل هي أيضا تتجاه يسطه هدو معتقدكم الحادية هنا أيضا تتواصلوا هدو عقيدة إلهي الرميسية هنا أيضا تتواصلوا لغضو ثقافة هذا أصل الطهي وحاد رقم يقابل نولولات سيتو سوقت وحن لنا وين نكلا قرنا محبنا آدم كو داقه أو كلا قاطه حنسل وداقين dadka aan haysanin mawaasiinta wax lagu qiyaasa waxay moodaan ninkii ka technology sareeya wax walba inuu ka sareeyo maradu technology sare leeyahay inuu wax walba haysto waxna kaba jiraan technology-gu noloshu fudaydiya qofka bini'aadamka noloshiisu fudaydiya laakiin qofka bini'aadamka siduu u fakarayo iyo wuxuu rumaysan yahay iyo qalbigiisa waxa ku jira waxba kama taro ولذلك dadka jaba thaqafatul ghalib bay qaataan ninka xoog badan leh thaqafadiisa iska qaataan laakiin dadka mawaasiinta haysta saxaabadii nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam baadiyay ku koreen meel aan waxba oolin bay joogeen cilmi hore may haysanin laakiin caqiidada diin bay aamineen caqiidada diintaasi waxay ka dhigtay inay soo arkaan asaatidatul caalamiin way risaalatu samaa wahyu samaa aqoonta waxa la yiraahdaa waa laba wax way yiraahdaan waa aqoonta cirka ka soo degtay ambiyada loo soo sheego iyo aqoonta ku saabsan kownkan daraasayntiisa ama bini'aadam hal daraaseeyo ama maadada hal daraaseeyo kownka daraasayntiisa tasamada ka timaada gaf ma leh inaad adigu si qaldan u fahamto mooyaane تدنيدا كاتما داسه وتراي انيرر وواحد لا تجابيو لا قلدمو لا تجابيو لا صحو واحد دنيدا ادنه سميا waxa la kala dhaxlo oo mid bay ku dul dhisantay hadii kuwa hore la waayay laha kuwan damana ma joogeen yani technology-ga Yurub ma jireen hadaan xadaaradii muslimiintu soo marin حضارة المسلمين توحي practical كوساب سنين بدروا كم يدي متشرتين أما ويقابل لهيد هداني حضارة دي هراي سون نقليين كشرين بن آدم كو وحي بن آدم كي هر السمايو وحكو سيدول لستا ساسانو سعودي لكن مركا يشوكتو حين نقاضنينا حين سكتجينا وين نكلا قرنا يسوى قاضنينا وحي قضية علمية حقائق علمية وحي نقضة لكن قاضن ما إنه values كي رقمه خلافسن كتاب كي سنان هيسنه منفتح وان نحي
وتجارب بني آدم كوحي فايدة وقادنا لكن منبطحين منهن ودتك اسكما دبصوا عنه مقلدين منهن مركا اعتماده في باب العقائد والتقاليد والأحكام مركا يشوكته هي قوانين مركا يشوكته ولذلك با إلهي القرآن كوحي نوت المامية آدنوه إنو كلا قد السنان كره وانا دبحين ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم شعاركم ووحن لقاطه سلوغن اسك بني آدم قاطه سلوغن اسك محل لو قاطه للتميز مثلا أسكرتني إن لا جوجتا يمكن دريس كلا يستاته دريس كا مسكحدا إنه وحو شيغيا markaad qof دريس ka istata aragto waxaad garanaysaa inuu yahay maxay ciidan inuu yahay baad garanaysaa khamiiskani intaan aan sita markaad aragto inaga culture-keena marka loo eego markiiba waxa kugu soo dhacaysa kani waa wadaad yani maradan baa sheegaysaa maradan baa waxay ka tarjumaysaa dhaqan ولذلك waxay dhahdaan libaasku waa madhar min madahir alhuwiyya baa la yiraahdaa aqeedada ka kale marada la xidhaa waxay ka tarjuntaa bini aadamka huwiyadiisa identity-giisa baadisoociisa iyo aqoonsigiisa ayay ka tarjuntaa مثلا qofka muslimka ah maruu leeyahay marada qofka muslimka xidhaa waa inay saatir noqotaa waa maro jirka asturta waa maro طاهرة والنجاسة لقى إلالية وأمر أنيق وقفكو كحرق وريه إن الله جميل يحب الجمال لكن مرض مركي انت صفة وضيالته أشكالك كسيدا بيا ثقافات قومية ويا وحضرك دونتا مركا حجاب باكستانية هي حجاب صومالية هي حجاب عربة هي حجاب وحيبة وحجابة انت اللي الربي ويسمية لكن كاني identity islaamnimo waa wada haystaan dhamaantood waxay se ku kala gadisan yihiin maxaa la yiraahdaa waxyaabaha qowmiyo oo iyaguna in badan ku salaysan climate-ka mesela dadka dhulka qabooba degan dee hugoodu waa dhar adag dhulka dadka qabooba degan hugoodu kulayla degan hugoodu cadaan buu badan yahay waxaynu markaa leenahay عمامة سيدا الله حدين سيدا يمن تادو حدتين تسع عمان تو حدتين يسالحية دينين أدو حدتا شكل ما لكن وحيلين مرضو ومظهر أما ومقال ده أيضا تتيجا كميدا سكال هذا نتلمامو وشار ربيدا ده وأستان هوديل هذا تسوق شوي مكود عنا يستر هذا الدلبو ريستورانت واحد يجي سقف دريس كارسته وهي علامة هنا مرة دل عسرو بودي ومغيانو لا أيضا تتكلم بتليسا مركا أيضا تتجي سلام لماذا هوا كسي صعطة وعكلات بتليسا تل النبي محمد وحولي تما بدناها حيرنا عليه الصلاة والسلام بدناها الله حرنا غير باديه هني الصوماليات ما دام أن قفرة يو حاسب بدنين بيا بدنا وحلقهم ما يداشرين عرفت تما ويكحيري شري لكن هذانا إن كيا إن تصل له كلا قرتابة وسبي شري إن ترى فود يربى لوري بيشرو فود ليبى لوري شري إن كنا دور بالو سبي شري ولا ده غير مجال كي مركا خير الدبدة كي بدو حد شري وركين هو دور يعني وغلادي هود كتمية ولي حلية تمية إما كان دور كي بحر رقم هودي يعني شالي تدور روحها عاي أو وحلو أركي إن يربى دي كي موليتا ما حد دور كي شالي تا عايدا هكذا دقي مانتا وأيضا تتجي نلوميننا شقاها وشقا فضي وحاد سيوين معها إن كستو دينتك سهر جيدو لكن وأستام بو وحيي دادك حن على مدى قاطان قلبيتك الدقاء قار كمدي على مدى هاي مريا هاي وحا هدا دركتو وحا استانويي جروب ايديولوجي آمنسان وهذا الكسادات صومالية دو مريهو دو نوعي وردونا قورمت كوان كبيرت ما بقوغا لكن وان مادام اي قلبيتك كتيمي فيسكو دايا ينقاطو نبو عليه الصلاة والسلام حليه لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم أو لدخلتموه
قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن نبي عليه الصلاة والسلام وحتى المامية كويدين كهرية ودوين كودي بالراعسان تاكا تاكي يردودون باو راعي دونتان حتى هدي قد مسلو قلي قلان وكذا بقلي دونتان قد مسلو قلي ما مساعة قلي ما همال قروح له ما همال وناق له لكن نبي مثال وحوق بحيي سيدا الله قادن دونا وحن معنا نولشا كلهين قد مسلو قلي لقال هذا وح معنا السمين يا ماها ما كان دركتم مد مريت شيحن سته شيخ عبد الرشيد على الصوفية محاضرة آخر ويل سوماليا يوروب كا سروال شيحن سته يسوي تاجي ومر كان ربينه وحويديو رسول حلو ولا الله يلي ترى سؤال كجوابي ولا الكين مردي سوي دلدلع سنته وعن واحد سقود دربوا السروال في عنا رقدنه أرنتي وعقلك الصومالي يسوي شيء جيو وايو مرض هذه أنت بودتك صود الدلاع سو عورض هذا موش سو إن هذا دنا كحرقوتا أيضا تتجاج والله كريسي ويا مرض الدلاع سام قفقو قادن كرا هلك كان بركين يشوفونه dadka waalana astaan baynu ku naqaanaa hadaad aragto mariyad dildilacsan nin sita oo timar raama leh timihiisu raamaysteen oo meel fadhiya waxaad garanaysaa nin maanka lagaga jiray inuu yahay waxaanad u arkaysaa wax laakiin markaad aydhanta tiga lumiso ee aad wax walba raacayso TV-gu maad ka arkaysaa mid raama leh oo mariyad dildilacsaday oo boodboodayo la leeyahay waa xidigii kubadda cagta ama waa heesaagii hebel ahaa ama waa Bob Marley ama waa kan waa Michael waa wax qariiba deyntii baad adna ku dayanaysa qariiba magaalante dabeetana niman dhalinyaro baan waxoogaa u akhriyay marka waqtigii Michael Jackson uu dunida calanka u sitay heesaha Michael Jackson baa wuxuu soo xidhay surwaal bowdadiya inta tan jidhka ka balaqbalaqsan oo aad u ballaaran canqowgana kor uga qaadan oo sunnada waafaqsan intana aynu u tolan lahayn malaa duniduna markaa waxay qaadan jirtay surwaal dheer oo dhulka jiitamaya nin dhalinyaradii ka mid ah surwaalkii soo xidhay kaasoo arkay anigoo eegayo sheekh waa mooda maca sunna buu yidhi sheekh waa mooda markii hore sunnada lama qaadanaynin laakiin markuu Michael xidhay أي نقطة موضة مع السنة يعني وحنا قدام لا هي قضية الشرطة وحيتها هي هو يدقف هدول لمية سف ضدبو مركاسي وأم المية وأدم الميسة هو يدن ربنا وام حياد لميسي والاعتزاز بدينك وبعقيدتك وبمبادئك وبالكتاب والسنة وإن تكف أنته جستد إن مسلم تهي إلهي محولي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يا كور في عم إلهي إلي كدتك الدين توقيه له يسقون دقك ونكسن كفانا كبير له وروي أنو مسلم كان كمده هيكون واقعيا يعتز بديني اعتزاز بنادم كقلبه وكتشبه هدي مركاسي أيضا تتجاج ولمه oo aqaaidii oo akhlaaqiyadki oo valueski oo diintaadii iyo dhaqankaaga iyo thaqaafadaadii iyo afkaagii haday lunto dameeridaan raacday baad noqonaysaa markaa waxaad aragtaba cid ku dayataad arki doontaa markaas oo ilbaxnimada u haysata oo kule waa modernization waa xadaatha waa maxaa la yidhahaa casraaniya adigu waqtiga lama socotid wadaad waxaad joogtaa qarnigii 14aad baad adigu noosh qarnigii 14aad ceeb maaha waxa ceeba dadku inuu dadnimadii iyo bini'aadamnimada ka lumo qarnigii 14aad hortiina dad fiican baa noolaan jiray kuwa dambana dad fiican baa zamanku maaha waa bini'aadamka iyo values ku haysto bini'aadamka iyo values ka haysto weeyaan caalamku maanta wuxuu xidhan yahay dad badan inay dadka diinta ka saaraan ilaahayna quraankiisa wuxuu ku leeyahay ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا إن بدنوا أهل الكتاب كم يدي وحي تعلين دينتي نين إذن كساران وقال إذن كردقان حسدا من عند أنفسهم لكن يمكن يجينا ولا كسارة نين شيخ الصومالي هذا
jaamacadka reer galbeedka joogaa wuxuu yidhi jaamacadda markaan soo galo oday kristanaa jooga buu yidhi odaygaa sidaan walaalanaan laabtaysa saaraa buu yidhi waayo inta kale brofesoradu ilaahayba ma rumaysna buu yidhi marka kanu yani kan bay isdhawaysteen markuu u arkay dadkii kale halka ay sii marayaan ayuha alaxiba waxaan leenahay waxaynu u baahannahay dhaqankeennii afkeennii caqiidadeennii diinteennii inaynu ilaalinno inaynu da'yarteenna yaryar ku soo rabayno luqmaan inankiisii markuu la telinayay wuxuu uga bilaabay ilaahay ninka luqmaan la yidhaahdo oo xikmad lagu tilmaamay oo laynoo soo naqliyey xikmaddaa wax ka mid oo ah ilmihiisii uu la telinayey ilmihiisa talooyinkuu siiyey 3 shay bay ku koobnaayeen caqiida oo uga bilaabay ilaahay inuu baro inuu cibaadaysto rabbigii caabudo iyo dhaqan fiican inuu dadka kula dhaqmo intaasuu kula telinayay وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله المهيجي يرايو إلهي وشريك يلن سببت وامحي إن الشرك لظلم عظيم شرك هو ظلم وين وعدالة درده وين هذا ما أنت النول حقوق ما مقشان سماها حقوق دا حولها حقوق دا درتا حقوق دا بني آدمك حقوق دا دمرك حقوق دا عرورتا حقوق دا كذا وحقوق دا إلهي كورمية ماركتين مخلوقاتكم بحقوق لا إلهي حق ماله إلهي بقى حق وين حق يصير وين لعبده سيدا وجد باللقمان وحوجا بلابي المهيسي إنه عقيدة ده الصحة وأشياء جنا حق إلهي إنه يهين لعبده أو أشياء جنا الظلم تو إلهي حق يصل الظلمين أيوه إنه شريك يلا ده بتنوع وصيت الماما لو حلنا لقصها بلابه المهير إلهي أنت وحبرش الصعطة أصل كوحبرش هذا وين هوية مجتمع على السوق دونيدا وزارة ده وحبرش هذا شقد كوادا يقبتوان محي وأمد هوية دينا إلى السوق كدي بين التعليم كوقدرته أنت بدن جامعات كالو قلت لك على علمي بحثي وحبرش هذا الرسمي tani waa training hoose oo bulsho wax wada akhrido bulshada ka tirsan in la soo saaro ayay tacliintan hoose oo dhami tahay laakiin muhiimadda koowaad ee waxaas oo dhan ka weyn waa inay bulshada identity-geeda ilaaliso ummadaha haddii ay homogeneous group noqdaan dad afkaarta iyo dhaqanka iyo caqaa'idda isku waafaqsan maamulkoodu wuu fududaadaa haddii uu khalkhalku tiro batana ummadda waxa adkaata sida loo maamulo Soomaali waxay idin maamulkeedu fududaado laakiin laba mushkilo yar oo ay leeyihiin baa wali loo taaglaayay mushkiladda qabiilka ku saabsan iyo mushkiladan faqriga iyo balwadda ishuwan ku saabsan labada mushkiladood Soomaalida mushkiladeedu wixii inta ka sarreeya waa jahli aqoon darro aynu dunida sida wax loo noqdana inaan aqoonin haddii la murmo sida loo xalilana inaan aqoonin xabad mooyaane waxaan u malaynayaa waqtigu inuu iska gabagabayay mala salaadkiina soo dhowiyay waxaan isku dayayaa inaan iska koobo ah dunidu maanta way isu furantay nin walibana ceesaantii buu ceel keenay cid waliba inay afkaarteeda faafisaabay ku tala gashay cid waliba miisaaniyad iyo akademiyo iyo aqoon-yahano iyo waxbay u diyaarsadeen waxooda inay wadaan innagu se waxaad moodaa inaynu dayacannay waa caalamul islaami kow ciddii maamulaysa iyadu waxay rumaysnayd bay la dagaalantaa caalamul islaami dowladaha ka jira waxa koowaad cadawga koowaad diintay u arkaan cadawgooda koowaad diin bay u arkaan aqoon-yahankoodana xabsigay ku hubiyaan oo dadka ugu dunida kale mujrimka la xidhaa caalamul islaamigana aqoon-yahanka la xidhaa inta wax garanayso baa xabsiga lagu guraa ummad mujrimkana sii daysa inta wax garanaysana xidhaa dawaa ummad meelan dhaweyn ku socota marka waxaan idin soo jeedinay wax weeyaan wadankan aynu degannahay
idinka waa aqoon-yahano dadkii u soo baxayaya haddii idinka identity-giinuba uu labac yahay mustaqbalka waddankani waa madow haddaa idinku dad sugban noqotaan barritaa ummadda inta kalena sugi karaysaa inaad sugantaan waxay u baahan tahay inaad diintiina barataan inaad culture-kiina barataan inaad afkiina barataan inaad ku faantaan inferiority complex inaad ka qaadin waxaad rumaysantay wax la qariyo maaha wax la qariyo saxaabi baadiye ka yimi ayaa boqorkii beershiya markuu yidhi maxaa u soo baxdeen wuxuu yidhi waxaan u soo baxnay linukhrija alcibaada min cibaadati alcibaadi ilaa cibaadati illah allahu ibtacathana buu ilaahay baana soo saaro wax naloo soo saaray bini aadamka is addoonsanaya inaanu ka saarro ilaahay dadka addoomma uga dhigno xurriya baanu wadnaa buu leeyahy waa qof mabaadi'du sitay rumaysnaa oo rabay inuu soo bandhigo u dagaalamayay innaguna wixii diinteennu sheegaysayna waa laga xishoonayaaba xagga hoosey ku jiraan inanka akademiga ahi inuu af ingiriisiga iyo ku faanaa buu jecel yahay xogaaga ingiriisiga markuu ku hadlo ama paper af ingiriisi ku qoran markuu soo qoro wuxuu soo arkayaa nin mutacallim oo khatar ah inuu yahay ama haddii la yidhahdo arkaanul islaamka bal ka warran waa iska dee wixii arrintii malcaamadda lagu hayn jiro maad wadaa buu leeyahay wuxuu haystaa malcaamadaha iyo dugsi quraanada iyo meelaha wax lagaga sheekeeyana taada waa idhanta tigiisii waa wuxuu aadanaa kale kaga socnaa marka waxaan kusoo gebagabaynayaa dad akademiga baa tiin waa inaan aydhanta tigiinu lumin isla markaana waa ina caalankaa ina aydhanta tiga ummaddan u sugtaan waa ina idinku qaadaan haddaa idinku xambaartaan da'yarta waa idinku dayanaysa haddaase idinku da'yarta lumisaan dee ummadda tan ilaahay bay leedahay subxaana wa tacaala وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين